بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيقو عبد العزيز علي إبراهيم عبد العزيز حلبان وحان كسوغانهاي مقالة مقدشو حانتا دالكا جمهورية الصومالية وحان جعلهاي قدهان شعبي الصوماليات إنان عاوة هالكان كولا وداقو برنامج كسوعانيا هالكا لو يقانو سيتي بالاس هوتيل iyadoo aad ka warqabtaan in maanta magaalada Muqdisho ay qaraxyo ka dhaceen tiro dad Soomaaliyeed ahina ay wax ku soo gaareen ama ku geeyoodeen meydadka qaarkoodna aan wili aasin halka dhaawacyaduna ay tiro dhaafeen in caawa hogaamiyahii kooxda Damujadiid ee talada dalka Soomaaliya haysatay sanadood ee la soo dhaafay ay magaalada Muqdisho ku qabsadeen xaflad ama munaasabad halkii ay uga baroor diiqi lahaayeen tirada dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatadu ka soo gaartay waxyeeladii ka dhacday maanta magaalada Muqdisho guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed annaga oo og marxaladda siyaasadeed dhaqan dhaqaale ay ku sugan yihiin qaybaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan inta ku dhaqan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan aad iyo aad aniga uga tacsiyadeynayaa gabood falka hantida qaranka lagu samaynayo boobka sii soconaya ee ka socda magaalada Muqdisho ama xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho halkaas oo saldhig u ah horjoogihii kooxda guuldareysatay ee talada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya la wareegtay 4 sanadood ka hor Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Garguurte waxaan ka tacsiyadeynayaa qoysaskii eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii Soomaaliyeed ee maanta naftooda ku waayay kuwii ay dhaawacyadu ka soo gaareen muxuu ahaa weerarkii ka dhacay iyo rasaastii faraha badneed ama xoog galayd ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho waxa wax lala yaabo ah oo aan jeclaan lahaa inaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee caawa suurtagalka ay u noqoto inay sida tooska ah iga daawadaan laamaha warbaahinta gaar ahaan bartan Facebook ee dadka Soomaaliyeed ay aragtiyada isku dhaafsadaan waxaan idin la wadaagayaa dhamaantiin xanuunka haleelay ama haysta bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan caawa idin weydiiyo su'aasha ah suurtagal ma tahay in Soomaaliya maalin oo dadkeedu ay xisaabtamaan ilaahay baan idinku dhaariyay iyadoo dhaawacyada iyo meydadkii maanta qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho meel la geeyay la waayay in xaflad ay ka soconayso 30 qof ama 40 qof ay goobjoog ka yihiin xafladaas oo hadda si toos ah uga socota telefishinada ama warbaahinta Soomaalida dhawaan waxaa hadli doona ama aad maqli doontaan codka warbaahinta Soomaalida lagu soo gudbin doono waxaa la soo deyn doona waa ka xumahay qof soo wacay darteed ayuu iiga go'ay waxaan dhawaan idin soo gudbin doonaa waxyaabaha ka dhacaya magaalada Muqdisho ee murugada leh shacbiga Soomaaliyeed waxaa la qabtay dhuunta waxaad arkaysaan in calankii Jamhuuriyadda Soomaaliya uu gadaashayda caawa yaallo waxaan ku faraxsanahay inaan aniga oo ku hadlaya guud ahaan magaca qaybaha bulshada Soomaaliyeed idin la wadaago xanuunka waxyeelada leh ee maanta soo gaaray dadka Soomaaliyeed runta marka aad doonaysaan waxay u baahan tahay Soomaaliya hogaamiye badbaadin kara uma baahna hogaamiye kooxeed kale oo la mid ah madaxweynihii talada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya 4 sanadood ee la soo dhaafay hayay ee guul darrada u horseeday shacbiga Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Qabyo aanu bixiyay waxaan la yaabanahay caawa xaflada ka soconaysa maadaama aan live halkan kaga jiro waxaad ka daawan kartaan laamaha warbaahinta Soomaalida miyaanan xishoonaynin miyaanan ilaahayna abuurtay iyo cadaabka ka yaabaynin waxa meesha fadhiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirkii warfaafinta iyo dhowr xildhibaan oo aan wax qiimo ah ku lahayn mujtamaca Soomaaliyeed dhexdooda waxay ku gafeen waxaad arki doontaan caawa marka hadalka ay haleelaan in ay shacbiga Soomaaliyeed kala hadlaan warbaahinta ay u adeegsanayaan ama xafladaha ay ku samaysanayaan hantida shacbiga Soomaaliyeed miyaynaan damiir dadnimo lahayn su'aalna iska weydiinaynin miyaynaan ogeyn in Ilaahay agtiisa kala sarreyn aysan jirin oo cadaabka uu na sugaayo miyaynaan xishoonaynin oo nan ka xishoonaynin waxaan u baahanahay oo shacbiga Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in aan dib ugu noqono si maadaama idinka aan caawa idin la hadlayaa mustaqbalkiina ay geliyeen khatar geliyeen oo muxuu ahaa aad karaamadii aad ku karaamo beesheen waxaan jeclaan lahaa in ayaha ubadkiina aad ka fikirtaan waxba idin tarimaya nin qaraabo idin la ah oo tuug ah wali ma aragteen nin kule si aan u dhamaystiro howlihii qabyada iga ahaa
aan u hayay wuxuu yiri qaranka laakiin waxaan idin leeyahay howlihii qabyada ka ahaa ee ku saabsanaa laaluushka dhacay boobka hantida dowladda iyo tan shacbiga Soomaaliyeed qabya inay u tahay 4 sanadood kadib hadii la dib loo doortana Soomaalidu ay kala tagi doonto waxaan hubaa hadii shacbiga Soomaaliyeed ay leeyihiin dareen waafi ah waxaan qabaa inay su'aal iska weydiiyaan dhacdooyinka murugada leh aan ugu imid magaalada Muqdisho maalinnimadii shalay ahayd maanta dhowr qarax ayaa ka dhacday rasaas xoog leh ayaa ka socotay ilaa galabta yacni 4 sanadood kadib soo wax la yaabo maaha in bulshada Soomaaliyeed ay dhageystaan kuwa dulmaya maalmaha soo socda inta aan jooga magaalada Muqdisho waxaan si toos ah u soo gali doonaa ugana hadli doonaa baraha Soomaalidu ay wax isku dhaafsato ama aadanaha intiisa kale ay wax isku dhaafsadaan sida Facebook waxaan soo dhigi doonaa dhacdooyin murugo leh oo ku saabsan dhibaatada shacbiga Soomaaliyeed xukuumadihii saddexda ah ee guuldareystay ee Xasan Sheekh Maxamed muddadii uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya uu soo dhisay waxaan shacbiga Soomaaliyeed iyo xildhibaanada la doortay rajeynaya hadii ay leeyihiin Nabil Nuur waa ku ogahay shaqaad ka heshay meesha laakiin saaxiibkay baa tahay noolow dareenkaagu ha ka sareeyo inaad qabyaalad iyo ruux ku taageerto anoo og ninka aad ku taageeraysa madaxiisa aniga og waa ninkii shaqada ku siiyay hadii damiirkaagu nool yahay dadka Soomaaliyeed halka aad ka leedahay Xasan Sheekh Maxamed ha noolaado dadkii Soomaaliyeed ee maanta ku geeriyooday ayaa taxsi u soo diri lahayd Nabil Nuur waa mahadsan tahay taariikhda socotada ah ee Soomaaliya meel baad ka galaysaa ballan Ilaahay waxaan kaaga qaaday burcadda iyo tuugada xalaaleysatay hantida shacbiga Soomaaliyeed inaan la dagaalami doono musuqana uu dhamaan doono ruux kasta ee doonaya inuu karaamo ku noolaado waxa laga maarmaana inuu garto danta iyo maslaxada guud ee shacbiga Soomaaliyeed Soomaalidu qab iyo kibir marna u dul qaadan mayso Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse maalmihii tuugada iyo burcadda ay xukuumi lahayd Soomaaliya waa soo dhawaadeen waa dhamaadeen maalmihii geeri iyadoo ay idin taalo inaad maanta shacbiga Soomaaliyeed aad hortiisa xaflada ku samaysataan waa nasiib darro weyn oo haysata dadka Soomaaliyeed guud ahaan dadka fadhiya damiirkoodu waa dhintay waxaan idin soo bandhigi doonaa barnaamijyo ku saabsan dareenkayga oo ka tarjumaya danta iyo maslaxada guud ee shacbiga Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa waxa la soo gaaray maalmihii isbedel la hubo iyo xisaabtan u Soomaaliya ka dhici lahaa suurtagal ma aha uma dul qaadanayno in wixii maanta ka dambeeya colaad laga dhaxoriyo shacbiga Soomaaliyeed in dhiigooda laga ganacsado waxaan idin hayaa muuqaalada iyo sawirada guryaha ay ka sameysteen magaalada Muqdisho 4 sanadood ee la soo dhaafay hadii ay hanti lahaayeen maxay u sameeysan waayeen waxaan idin soo bandhigi doonaa dhismayaasha sida sharci darrada ah lagu siiyay ama lagu bixiyay ee ku yaala magaalada Muqdisho dhamaantood waxaan idin ballan qaadayaa in Soomaalidu ay horay u soconayso horeyna u socon doonto ninna god ayuu u galay maxay ahayd difaaca qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliya ninna muxuu ahaa isagoo dharka militariga wata ayuu dah isagoo taagan isku soo agsawaray soo nasiib darro iyo ma aha uu aad iyo aad u weyn waxaan idin xaqiijinayaa in aan loo joojin doonin tuugada iyo burcadda muxuu ahaa iyo dilaalayda 4 sanadoodna haysatay maamulka dawladnimo ee jamhuuriyadda Soomaaliya amiin ilaahay umuraha ha sahlo ilaahay umuraha ha sahlo doorasho ma filaayo xaq iyo xalaal inay ka dhici doonto magaalada Muqdisho oo xaruntii jamhuuriyadda Soomaaliya ruuxii karti leh waxaan joogaa caawa magaalada Muqdisho waxaan ku faraxsanahay joogitaankayga magaalada Muqdisho waxaan caawa u sheegayaa tuugada iyo burcadda halkan ku jirta ee hadlaysa ee leh waxaanahay hebel gacal iyo hebel sidaas ah waxaan rabaa inaad banaanka keento hadaad dadnimo leedahay sidayda oo kale inaad ka hadasho laamaha warbaahinta hadii kale gobonimo iyo warkeed waad kala dhimateen Soomaaliya ha noolaato cid kasta oo su'aal qabta waa ka jawaabayaa maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda ama haddadan aan idin la hadlaayo lafteeda halo live aan ku jiraa waa ku soo waca waxoogaa kadib dagaal aan ku jiraa waxaan rabaa in shacbiga Soomaaliyeed
ogaadaan shidada ka tagan magaalada muqdisho xafladda arooska ah ee ka socota muxuu ahaa meesha la yiraahdo City Palace Hotel ka soco maya waa ogahay inaan jida in la gooyay dhammaan wadooyinkii shacbiga Soomaaliyeed ay mari lahaayeen waxaan la socdaa in la gooyay dariiqadii ay dadku mari jireen dhammaantood suurtagal ma ahan in la aqbalo waxa ka soconaya meesha waxaad ogtahay caawa wax ka yar 200 oo qof oo Soomaaliyeed inay caawa joogto gudaha xarunta uu shirka ka socdo ama uu ka socdo xafladda iyo arooska uu ku sameysanayo in Xasan Sheekh Maxamuud ee uu haysto in hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya aan aaminsanahay inay maalmaha uga hareen farxad iyo qosol kama muuqato wuxuu ka jawaabi doonaa hadaladii runta ahaa ee shalay warbaahinta Soomaalida sida aadka ah ay u hayeen waxaan rajaynayaa in Soomaalidu ay garan doonto xaqiiqada halka ay jirto aad iyo aad ayaan ku salaamayaa waxaan rabaa inaan dib ugu soo noqdo halkii hawsha ay noo mareysay miyaynaan damiir lahayn miyaynaan ilaahay ka cabsanaynin miyaynaan lahayn garasho iyo caqliga miyaynaan saaxiibo ahayn waxaan rabaa inay dadka qaarkiis caytamaya ee halkan ku jira bal inay ogaadaan ayaamihii maxamed siyaad barre ilaahay naxariistii jannaha siiyo xukunka iyo dowladnimada Soomaaliya oo madaxda ka ahaa wuxuu xabsiga dhigay ilaahay naxariista jannaha siiyo Major General Umar Xaaji Masalle iyo Dr. Maxamed Aadan Sheekh oo ay qaraabo la ahaa haddii qabyaaladii ay wax tarayso qoysku magaca guud ay wadaagaan ama ay wadaageen maxamed siyaad barre wuxuu ahaa qoyskii ugu horeeyay ee dad Soomaaliyeed ee uu ku duula ayay ahayd kuwa qabyaalada ku taageeraya ee qaraabada la ah Xasan Sheekh waxaan idiin xaqiijinayaa caawa maalmihiisii inay tageen dadka Soomaaliyeedna ay ka tashan doonaan halka aan hadalkaasi kale yahay caawa waa magaalada Muqdisho oo aan ku suganahay waad ogtihiin shalay inaan imid wax xil ah iyo xoolo ah oo aan ka doonayo shacbiga Soomaaliyeed ma jirto baahi kuma soo korin waxaan ka imid qoys ladan shaqaysta tuuga la iguma soo barbaarin kuma soo korin dadka Soomaaliyeedna maalinta ay haboonaato waa la is xisaabin doonaa waxa la rabaa lacag kasta oo laga xado halkii lagu cuni lahaa xafladdu kama socoto villa Soomaaliya waxay ka socotaa halka loo yaqaan City Palace Hotel halkaas oo kumanaan dollar lagu bixiyay miyaysan xaq ahayn in la badbaadiyo dadkii Soomaaliyeed ay dhibaatadu ka soo gaartay haddii ilaahay idmaayo iyo kuwa ama caawa godka ku jira ama dhaawacyadooda u yaalla isbitaalada Bright sida gaarka loo leeyahay ee ka howlgala magaalada Muqdisho miyaysan xaq ahayn lacagtaas in lagu bixiyo iyadoo lagu jiro maalin murugo iyadoo lagu jiro maalin dadka Soomaaliyeed ay haboon tahay inay ka xanuunsadaan daqarada iyo nabarada soo gaaray dadka Soomaaliyeed maanta ku geeriyooday in maanta xaflad uu caawa ku sameeysto Xasan Sheekh waxaan leeyahay mas'uuliyadeeda inay qayb ka yihiin shacbiga Soomaaliyeed wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh eebow waa ku salaamay waxaan joogaa magaalada Muqdisho bartamaha magaalada Muqdisho waxaan soo gaaray maalinnimadii shalay ahayd inta isbedel la hubo oo ka dhacayana waxaan rajaynayaa in aan joogo balan aan ilaahay xaqiisa ka galay ayay ahayd inaan joogo magaalada Muqdisho geeridu waa xaq ruux kasta oo noolna waa dhimanaya maalin buu dhadhaminayaa geerida laakiin waxaan hubaa in muxuu ahaa aanan cidna u joojin doonin hadal raqiisa oo ay la timaado وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته توري رواك السلام
waa guuleysanaynaa ayaantu waa dhowdahay guushu waa dhowdahay Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye shidada ka saara uma baahna hogaamiye tuug ah oo jeebabka ka buuxsada waa ka badan yahay halkii saac lacagta lagu kireeyo $1,000 hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho هلو هلو ها في عنها وعكوسو علنا وحيا كدب يا هاي قدم كجرا وعكوسو علنا waxaa laga maarmaana inaad ila dhageysataan oo aan jeclaystay inaan idin soo diro muxuu ahaa hees yar oo aan aad u jecelahay heesta marka ay dhamaatana waa ka baxaya barnaamijkii tooska ah ee aan ka soo jeedinayay magaalada Muqdisho Allah Allahu Akbar Allah 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 Allahu Akbar Allah 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 Allahu Akbar
حريمة كما دوانين حريمة كما دوانين شلوهرين جمهوريات ما دلالين شلوهرين جمهوريات ما دلالين دحلحما 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 قبيل كدافنو رجنا عين دارو إنا قبيل كدافنو رجنا عين دارو عذر كأنت ماينو دماينو دماينو يا إنو عيني الله 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 أكبر الله الله أكبر الله 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 أكبر ربنا والد دواقي Soomaalidu dhawaaqde ciisaf loo dhaqaaqo intuu gumaysi dhuunte intuu gumaysi dhuunte daandhi Haloridin angkamainu didibnen Haloridin alangkamainu didibnen Naigesial diman ya kuma dawaknen حرنيما كما دواقنين أشالوهرين بوريات مدالينين جمهوريات مدالينين الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر الله 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 أكبر كدافنو درجنا عينو غارنو قبيل كدافنو درجنا عينو غارنو عذور دماينو دماينو أيا إنو دينايري إلا يستحكينو وذا عيارتو
dhashaa in layska keeno dhashoodu wada ciyaarto adduunka noo dhaxayno ayaa inoo dhinayde haddaan murtida la dhuuxin oo aan la dhigin afkeenna haddaan murtida la dhuuxin oo aan la dhigin afkeenna oo aan shisheeya andowrno samayne haddii dereg la doono oo aan dhib loo adkaysan haddii dereg la doono oo aan dhib loo adkaysan oo aynu meel dhacdiidno samayne haddaan dhaqan wareegno oo aan dharkeenna xoorno haddaan dhaqan wareegno oo aan dharkeenna xoorno oo ay dhashii ilowdo mayne allahu akbar allahu akbar wacalaykum asalaam allahu akbar dhaliyahay dhammaanteen dhaliyahay dhammaanteen dhaliyahay dhammaanteen samahamaw dhaqaaqna dhaliyahay dhammaanteen dhulka mau shaqayna dhaliyahay dhammaanteen kana mawekana allahu akbar allahu akbar waa mahadsan tahay saaxiibkay intaasba waa garasho nabiil aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay allahu akbar waxaan jeclaan lahaa inaan haddana idinku soo dhaweeyo hees kale oo aad iyo aad aan u jecelahay oo la xusuusinayay ayaantii lala dagaalayay maxamed siyaad barre magaalada muqdisho ay ka qaadeen ay baheen naxariistii jannaha labaduba ha siiye labada fanaan ee magaca iyo sumcadda shacbiga soomaaliyeed kaga tagtay ee kale ahaa ilaahay ha u naxariisto cabwaan cabdi maxamed amiin iyo saada cali warsame heestaas oo ah warninkow bal ila dhegaysta inta yar ee ugu dambaysa heestaas waxaan rajaynayaa haddii aad maqlaysaan inaad iisoo qortaan waa maqlayaa heestaasi halka aan ka sheekaynaya ama aan ka hadlayaa waa halka la yiraahdo magaalada muqdisho down xasan sheekh war ninkow
ninko jirinayaaye alla jawaab ma i siin kartaa ninko war ninkow waa soo dhawaadeen maalmihii laga guuleysan lahaa burcadda iyo qowleysatada xalaalaysatay hantida shacbiga Soomaaliyeed boobkana ku haysa hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya. Hello afiicanahay عادي يا اهلا وسهلا وكم سو علينا يا برنامج ير او غبغبا اي مري ayaan dhamaysanaya wax yar kadib aan ku soo celinaya haye ninko waxaan rajaynayaa inaad ila dhageysateen heestii aan idinkaga soo gudbinayay magaalada Muqdisho iyo halka dareenkayga uu marayo. waxaan idinkaga tagayaa tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo. waxaan rajaynayaa inaad barnaamijyo xiriir ah oo marxaladda siyaasadeed dhaqan iyo dhaqaale ee xaaladda ay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan ku sugan tahay inaan idinla wadaago muddada aan joogno tan iyo inta isbedel la hubo uu ka hana qaadayo dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waa heestii ugu dambeysay oo kamid ah heesaha aan aad ku jecelahay ee ah bal haddii codkeedu u dheer yahay waa i dhageysan kartaan. waxaanan idinkaga tegayaa tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabad gelyo. waxaan rajaynayaa inaad ila socon doontaan. waan jeclahay dadkayga waan jeclahay وعليكم السلام دمانتين. xumaanta waan la dirirayaa
samaanta waan doodayaa dalkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay waa idin salaamayaa waa cabdicasiis cali ibraahim oo loo yaqaano cabdicasiis xildhibaan oo mar kale idinka soo salaamaya magaalada muqdisho xarunta dalka Soomaaliya tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa I love you ma calankayga Soomaaliyeed dalkayga dadkayga ciidayda intaba waa u dhaaranaya waanan jeclahay dulliga kooxda horseedka ugu noqotay ee boobka ku haysa idanka ilaahay waa laga guuleysanayaa maalinta ay noqoto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسي.